dhawaada mar kale iyo channelkeeni ahaa tusinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo walaashiini Ismahaan Khaliif Cali oo mar kale idiin sidaa wax tayo leh oo qalbada u roon oo wax ka bedeli kara bulshada horumar ku gaaraysa oo dan ugu wada jirta waxaan ku soconayaa mar kale cashirkeeni qaybtiisa labaad daryeelka qoyska cashirkiisa koowaad waxaan ku soo qaatay ninka ragga ah meeshii uu kaga jiro haddana waxaan ku soo qaadanayaa horta intaan cashirka hore ugu galin balanteenu maxay ahayd ayaan idin leeyahay wanaag balanteenuna waa wanaag iyo xumaanta oo la reeba maadaama channelkan uu yahay channel khayr ka socdo oo wax wanaagsan uu ka soo baxayo waxyaabaha macno la'aanta aan ka ilaaliyo channelkayga masha Allah waxa bulshada wax u tar leh aan ka soo saaraya insha Allah waxaan rajeynayaa ilaahay inooga fududeeyo inaan halkan idinkala soo hadlo ayaa ilaahay uga shukrinaya waxaan uga mahadinayaa dhammaan inta channelka ku xiran waxaan idinka dalbanayaa la subscribe dhahdaan like iyo share waa idinku ogahay balanteenuna waa wanaag iyo xumaanta oo la reebaa maanta daryeelka qoyska ayaan ku soconaynaa cashirkii koowaad daryeelka qoyska waxaan ka hadlay inuu ninka ragga yahay tiirka marka ninka ragga maadaama qoyska tiir u yahay aan ka soo hadlay naagtana qofta dumarka ahna tiirkan dhaxda markuu dhismo waa kuwa geesaha waa kuwa geesaha waxaas dhan wax ka duwanaa jiro daryeelka qoyska waxaas waxa ka weyn waxaa jiro daryeelka qoyska wax kor ka dado kor maxaa waxaas marka daladi korkeeda kore waay waxaan ku qiyaasay waxaas waxa waaye hooyadii aabaha wiilkii gabadhaas isguursadeen dhaleen labada qoys ay ka soo jeedaan reerkaas labada qoys wiilka reerkiisii iyo gabadha reerkeeda labadaba maxaa laga rabaa meeshan kaga hadlayaa iyo dhamaan inta ku heerarsan asxaab iyo daris iyo wax walba qof kasta oo Soomaali ah daryeelka qoyska wuu ka qayb qaadanaya wuxuu ka qayb qaadanaya qoys kasta oo Soomaali ah oo muslim oo jira daryeelkiisa qof kasta oo Soomaali ah oo muslim ayuu waajib ku yahay walaalayaal ilaaha aan ka cabsano guryaha la duminayo ilaaha looga cabsado walaalayaal guryaha la duminayo ilaaha looga cabsado guryaha la duminayo la fiirsanayo oo laga sheekeynayo bis waxba laga qabanayn ilaaha looga cabsado labada qoys wiilka hooyadiisa iyo gabadha hooyadeeda iyo aabayaashooda iyo walaalahooda qoyska Soomaaliyeed waxa waajibka ka saaran waxa waaye inay nabadgelyo cad siiyaan inay qoyskaas waxba ku darsan hadduu wax si ka noqdo ama wanaag ugu la tagay may laakiin inaad ka dhex shaqaysid ka war maanta Soomaali waxay noqotay inay qoys dhisan ayaga iska liqliqanaya ilaa aniga idinka horta hore ma garanayo dadka si u fahamsan yihiin aniga ma aha nin naag 100% isfahmayaan inay jiraan midna la tahay adduunkan wax saasay inuu jiro ma jirto hadda u maleynayso waa qaldantay nin naag kasto wiil iyo gabar kasto oo guri galaan way isqilaafayaan qofkii ka sheekeeyana oo arinkooda ka sheekeeya dambigaas dhinac weyn u kaleeyahay dureerkaas dumaa biri dhinac weyn ka leeyahay haddaasi ka qayb qaadatid gareerkaas inuu dumaane dhibaqo marka waxaan ku leeyahay qoyska markuu bilaamo wiil iyo gabar ayaa isjeclaanaya isguursanaya laba reer ka dhasheen waxa laga rabaa labada reer si wanaag ah bis hadda halaas xumaan geysatid oo qofkii reerkaas dumistiisa ka qayb qaata dhinaca hooyada wiilka dhinaca gabadha ha ahaada ama dhinaca wiilka qofkii ka qayb qaata oo adduunyadan dib ku arkaya aakhirana su'aala sugayso ilaahay hortiisa waxa leeyahay islaax inay ku sameeysidee reerkaas maalintaas uu dumay adiga sabab ugu ahayd inuu dumay adaa sabab u ahayd adaa saan u ahayd kelmadaas aad dhahday oo si dhaga hadal inta ka marisay wiilkaaga ama gabadhaada ka marisay ee gurigeeda u dumisay hooyo iyo aabe iyo abaayo iyo aboowe leedin soo saaraya nasiib ayaa leedahay haddaadan ka qayb qaadan qoys dumaayo nasiib ayaa leedahay haddaadan ka qayb qaadanin nasiib ayaa leedahay haddaa qoys Soomaaliyeed badbaadisay maxaa yeelay maanta bulshada waxay la burburaysaa guurka dumaayo ayaa bulshada la duntay guurka dumaayo aad ugu faraxsan yahay maanta inay nimankii naagaha raggi dumarkiis qabaan kala tagaan oo ilmihii dayacmaan aa lagu faraxsan yahay habar ma maanta dadka ku faraxsan qof kastoo ku faraxsan inuu maanta guri dumaa ku fikiray ilaahu mu gurigaas duma isdhahay xaasinimo ka tahay alla maxaa silicsan tahay alla maxuu shaydaan kugu tuntay
alla maxaa adduunyo ku ta'kiiri doontaa alla maxaa ildarnaan doontaa alla maxaa su-aal aakhiro ku sugaysa haddaa kelmad reer ku dumo ya sas u gaarsiisid iska badaa inaa ugu talagashido wiil iyo gabar la kala fujiyo hadda taasaa socotee saasaa loo kala fujinaya wiilkayga keen gabadhayda keen subxaanaka yaa ilaah adi maa iskale wiilka mise gabadha adaa iskale ilaahayaa abuurtay adigu ninaa kusoo qabay naagaa soo qabtay aabi iyo hooye war gabdhaha soomaaliyeedow guryaha wiilasha walaalihiina iyo guryaha gabdhaha walaalihiina daaya ragga soomaaliyeed saas guryaha hala daayo muxuu ahaa barnaamijkeena daryeelka qoyska haddaan qaybtaas dadka laga celinin guryaha laga celinin wax hagaagay male daryeelka qoyska waa dalad waa daryeelka qoyska waa daladaas waa hooyadii aabihii walaalihii dariskii qaraabadii dhan waay hadduu ka qayb qaato uu reerkaas maalin dumaa oo kelmad xataa qofkaas aa ku ogtahay soo qaadida qofkaan u sheegtid uu reerkaas ku dumaa ugu talagashid gurigaas inaad dumisid ugu talagashid ya waxaa la mid tahay shaydaankii weynaa ee taashka loo suraayay ilaan shaydaanka waxaa la dhahay markuu ninii naag soo kala furo wiil iyo gabar isqabaan soo kala furo maxaa la dhahay taashaa loo suraaya kaas iyo adiga isku meelaa naarta ka galaysaa biidnillaahi kariim tooba haddaadan keenin adduunka intaa joogto ku toobad keenin guryaha islaamka ee soomaaliyeed aan la deynin taariikha idinku soo socoto guryana in la dhiso guryana in la dumiyo ma soconayso kii aad dhisaysaa dumaayo guriga aad dhisaysaa dumaayo kaa duminaysin wuu dhisnaanayo saas waa xikmad waayo qabso xikmadda ismaan khaliif channelkayga waxaan ka bixiyaa cashirka xikmadda barashada xikmadda iyo toosinta garaadka ayaa la dhahaa channelkan la soco haddaa isdhahdi gurina dumi kaa dhis isdhahda horta ma dhismanaayo maxaa yeelay ilaaha duminaya kaasuu duminaya xaqdaraa ku dhisaysaa kii aad dumi isdhahdayna wuu dhismanaa kii kalena wuu dumaa walaalayaalow dad xikmad la noqda walaalayaalow carabkaas iyo dhagahaaga iyo indhahaaga iyo qalbada inaan nadiifsano ilaahay ka cabsano oo dadka islaamka nabadgeli haddaada wax u taraynin faraha kala baxa qoysaska islaamka faraha lagula jiro ha laga haro maanta se waaba badatayba dhulka aan ku noolahay wiil iyo gabar yar hadda isguursanayaan waa la kala furaa ilaahay uga cabsado walaalayaal wiilashii gabdhaha yarka isguursanayaan aad kala furaysaan haddee dad waaweyn yihiin iyo haddee dad yar yihiinba qoys la dumiyaa dhibaatada ee leedahay ilaahay wuu noo sheegay qur-aankiisana waa lagu sheegay nabigeena maxamed calayhi salaatu salaam wuu noo sheegay walaalayaal dad islaam aan nahay maanta inaan ka shaqeyno qoys inaa duminaa walaalayaalo soo dhibaato maaha qoys inuu dumaa maanta in laga shaqeeyaa ka fikir in lagu farxaa naag ay maanta dhexda usoo xirataa sodohe wiilkeeda iyo gabadhaas inay kala furtaa soo xumaan ma aha soo xumaan ma aha soo waxun maaha soo dulinimo maaha waxaa halkaan kala dardaarmayaa dhambaalkan u dirayaa hooyo kasta soomaaliyeed da-di rabta ha ahaato inay ku dadaasho qoysaska inay dhexgalin inay carabkeeda iyo adinkeeda iyo qalbadeeda ilaashataa maxaa yeelay maalin ayaa lasoo istaagaya ilaahay hortiisa oo qalbada saas loo feelaya waa ceeb isqari ama isqarin horta waa la fashilmanaa inta lagu fashilmanaa waaba fashilmanaysaa adduunka ku fashilmanaysaa qof wax dhibaateeyay makula tahay inuu badbaadayo gabdhaha soomaaliyeed oo guryaha wiilasha walaalihiina daaya walaalkaa gurigiisa wax kaama galin haddaa walaalkaa gurigiisa shanta suratid oo dhahdi guriga walaalkaa haduma gabadhaas hafur gurigaaga dumaayo iga qaba xikmad waayo taasna haddaa isdhahdid gurigayga ha dhisnaada gurigaas dumikaaga dumaayo waxaada nafsadaada la rabinne walaalahaaga muslimiinta la jeclaanay shaydaan way ka ahaatay waxa xun isku mashquula walaalayaal idiga isku mashquula nafsadiina jeclaada cashiradeyda jecelka nafsadaada ku noqo adiga isku mashquul walaal adiga isku mashquul adis tixgeli adis qiimee dadka daa ku mashquulsha waqtigaa kaa qasaaraya guryaha qoysaska kale laguma dirsan qoyska adiga samaysatay haddaa nin ku gursay haddii naag ku gursa samayso kaas ka hadal kaas daryeelkiisa ka shaqeey kan kale haddaa wax ku siyaada haddii kalena banaanka ka joog markaa fahantay gurigu liqliqanaya aragtid inaad shaqo ku lahayn sheeg banaanka ka joog laakiin inaad hoos ka walaaqays saliid macsaro mashiinkeeda ku shidid ninkii iyo naagtii liska daba wareeji kan inta looga tuuro ilaaha ku jeedo
ayaga hadday aqli leeyihiin way ku fahmayaan marka walaalayaalo ilaahay aan ka cabsano walaalayaalo aan isku duceyno halays cafiyo maanta adduunyaha la joogaa nasiibuu leeyahay qofka maanta adduunka jooga inuu isdaba qabto aadan ugu jirtaa ilaahay u toobad keenaa uu dadkina cafis ka dalbadaa maxaa yeelay wiil iyo gabar yar yaroo fara badan maxaa la kala tuuray walaalayaalo qoyska la duminayo ilaahay uga cabsada walaalayaalo qoyska faraha la gashanayo ilmaha dhaleen reeraha ilmaha leh oo shanta faraha lagu lahaayo ha laga cabsado maxaa yeelay walaalayaalo shalayta ka dambeyso waa huri doontaan waa ooyi doontaan jahannamo hoosteeda iyo salkeeda lagu geyn doonaa maxaa yeelay ibliiskii taashka loo suriyay adiga isku meelaa la idin geynayaa walaalayaalo ilaahay ka cabsada culimmadii way hadashay dadka way hadleen dalada daryeelka qoyska ayaad ka qayb qaadataa haddaa reerka Soomaaliya daris la tahay dhibaatadooda ha ka shaqeynin haddaa hooyo aaba tihiin ha ka shaqeynin haddaa walaal tahay ha ka qayb qaadan ama reerkaas wax u tar haddaad u tari karin walaalayaal nabadgeliya ilaahay uga cabsada daryeelka qoyska waa soo galaysaa daladaasa ku jirtaa qof ka maqan male dalada daryeelka qoyska guryaha ilaaha looga cabsado walaalayaal guri kasta islaami markuu dhisnaadaa uu horumar gaaraa horumarkaaga waay guriga walaasha markuu dhisnaadaa horumarkaaga waay guriga walaalkaaga markuu dhisnaadaan horumarkaaga waay walaalayaal haddaadan wax u tareenina walaalayaal nabadgeliyo haadaa wasalaam waa ku nabadgeliya haddaadan fahmaynin nabadgeli walaalkaa naagtuu qabo walaalshaa naagtuu ninku qabana haddaadan fahmaynin walaal waa ku nabadgeliya laakiin carabkaaga inaa ugula tagto guryaha islaameed walaashaa ninka qaba 5 suuratid ama walaalkaa naagtuu qaba 5 suuratid muxuu ahaa reeraha dariska ka shaqaysid ninka jidka loo istaago war hebelaay wayaantaan ay tawasaasay keenta inta waxaas bal fiir walaal sumcad xumadaas bal arka walaal beerna xamalidiin miya walaalayaal beerna xamalidiin miya walaal ma taashka in loo idin suro rabtiin naarta la gashin ibliiska walaalayaal ma ilaahay ka cabsataan walaalayaal ilaahay ka cabsada aniga shiiqad mi ihi aniga waxa idin soo yeelo ma wanaaga ilaahay fahansiye ayaa idin la wadaagaya inta maanta adduunka ka tagin alxamdulillah ina aniga ka qayb qaadan qoys burburkiisa ilaahay ayaa uga shukriya ilaahay looga baqo qoyska burburkiisa walaalayaal qoyska Soomaaliyeed aad burburinaysaan aad ku dhex jirtaan walaalayaal qof kasta cajalkan dhageysto qofka uu qoyska ka dudumin rabay ama uu ka dudumiye walaalayaal ilaahay uga baqo walaalayaal ilaahay uga baqa walaalayaal naarad u socota adduunkan uu ku ureysa qoyska la dudumiya dhibaatay leedahay walaalayaal arxan ma lihidiin miya maxaa ilmaha hooyadooda aabad u kala diraysaa ilmahaas idin habaaray biri eedow ahoo habaryar ahoo abti ahoo adeer ahoo ayeeyo ahoo yawoowe qoysaska la duminaya halaga haro wiligaa hadhihin fur wala wiilkaaga iyo gabadhaada wax fur hadhihin ha ka qayb qaadan haddii is haystaan isku maslaxay haddii ku isfahmuusay walaalayaal idho xalada xaqiiqa jooga marka anaa ka qayb qaatay yaa la dhihin banaanka ka joog inaa ka qayb qaadatid taash lagu suro beri maartaa oo naarta la gashid ibliiska walaalayaal ilaahay ka cabsada daryeelka qoyska daladiisa meesha ugu korayso waa wiilka hooyadiisii aabihiisii gabadha hooyadeeda aabaheed walaalayaal dallada idin sameey dalladaas halkeedaas tahay tiirka dallada saas u hayna waa ninka kuwa geeskan joogtana waa dumarkii walaalayaal ilaahay ka cabsada walaalayaal dulmiga daaya walaalayaal xadgudubka daaya walaalayaal waxa dadku ku diin iyo kala geeska daaya walaalayaal qoys burburo waa dhibaato ilaahay uga baqa cijidas ha u geysan banaanka ka joog waxaa leedahay maqla aniga meeshaan shaqo ku malhiri naar marabtaa hay saa ugu dhex jirno reerka hadduu duduma ka waran beri meel la isku furaayo inaa la taagnaadaaba la rabaa dadkii walaalayaal daryeelka qoyska daladiisii waxaa dusheeda sare waxa ku heerarsan dhan waxa waaye
waa hooyadii aabaha abtigiiyo adeerka eedadiiyo habaryarta qaraabada oo dhan ka qayb qaata dhisidda daryeelka qoyska Soomaaliyeed ka qayb qaado dhisidda qoyska daryeelka Soomaaliyeed ka qayb qaado dhisidda qoyska Soomaaliyeed ka qayb qaado dhisidda daryeelka qoyska Soomaaliyeed ka qayb qaado dhisidda daryeelka qoyska Soomaaliyeed ka qayb qaado ilaahay aakhira qayb fiican ka siiye markuu qoyska hagaago ayaa dad fiican banaanka u soo baxaa markay soo baxaana bulshada hagaagto markay hagaagtana dawlad nadiif ah la helaa deganaansho la helaa horumar la gaaraa waxsana la helaa laakiin dumista qoyska Soomaaliyeed in laga shaqeeyo loo soo dhaxirtaa waa murugo aad iyo aad u xanuun badan waxaana idinka dalbanayaa qof kasta imaanta cajaladan soo gaartaa waxaan rajaynayaa culimada inay ka hadlashay daryeelka qoyska Soomaaliyeed maxaa yeelay anigu way u badan tahay wax badan inay jirto in cajalado badan laga sameeyay laakiin aniga waxaa idinka dalbanayaa in la soo kordhiyaa laga hadlaa dadka duduminaya wiilasha iyo gabdhaha yarka isguursadeen ama hooyo aabe ilmo leh in la kala geeyo ku heshiinayo walaalayaal ilaahay uga cabsada walaalayaal wixii iswadanaya ha iswato wiilkaaga qabiilku raba ha guursado gabadhaada qabiilka rabta ha guursato muslim inay yihiin ka ogow oo Soomaali ah walaalayaal haddaa qof Soomaali u diidid wiilkaaga qof kale ku keena qofka kalena qofka Soomaaliga ka xiga mar walba ogow ma afgaranaysid isku sinji ma tihiin dhibbaad kala kulmaysa waad ka shalayn doontaa walaalayaal wayba dhacdayba ka noqo ilaahay u noqo oga cabsa ilaahay maxaa yeelay naar baa dadka sugayso ilaahay oga baqno aan dadaalno xaq Allah nagu sugo qaatumada Allah noo suubiyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu carabkeena ilaahay shukrigiisa hay ilaahay naga dhigo xaq Allah nagu dilo walaalayaal isku dardaaranna khayrka waxaan rajaynayaa wixii khayre oo afkayga ka soo baxay waxay ka ahaatay ilaahay xaqiisa wixii xunaanay iga haatay sheedaan waxaan rajaynaa sheedaanka iyo nafsadeyda inay iga raaynin sheedaan iyo nafsadeyda xunta in iga raayna rajaynaya ilaahay inuu iguuleeyaan rajaynaya wax xun ilaahan ka magan galaya waxa idinka dalbanaya barnaamijkan daryeelka qoyska inuu hirgalaa daladiisa ahayd walaalayaal hooyo aabo ha ka qayb qaadanina ha dhibsan wiilka gabadhaada qabo ha dhibsan gabadhaada wiilkaaga gabadh uu qabo khayr ku ahaa ma ogide iyada bari khayr ku noqon doontaa ma ogide midnaha isjeclaysiin midnaha isnacsiin walaalayaal qabiilka ka hara qabiil guur ma galo ku doorta dadka wanaagooda iyo siday yihiin qabiilka iyo qurunkiisa iyo xaqdigiisa iyo fasahaadkiisa iyo waqtiga ka qaadin waxaan ka dalbanayaa cajalkan markuu ku soo gaaraa ina walaalaha Soomaaliyeed la wadaagin barnaamijkana wuxuu noqon doonaa taxane halkan kuma yaalo dumarka ayaan ka hadli doonaa ciyaalka sidee loo daryeelaa ayaan ka hadli doonaa wax halkan ku yaala ma aha walaalayaal waxaan ka dalbanayaa in aad la wadaagtaan walaalihiina Soomaaliyeed qof alaalo qof dumis qoys Soomaaliyeed ka qayb qaadanaya daarkan waxa dhahda ilaahay uga baq taashki sheedaanka yaa lagu surinay taashki ibliiska yaa lagu surinay ka har hana ka qayb qaadan dumista qoyska Soomaaliyeed waxa ka qayb qaadataa daryeelka qoyska Soomaaliyeed iyo dhisidiisa iyo horumarintiisa wax wanaagsan hadaan u sheegin walaasha ama walaalka ka har walaasha kula dhalatay meel cidlaha u dirin walaalkaana wax cidlaha u sheegin hadaada wax ku dareenin iska daa walaalka naagtiisa hadaadan fahmaynin u nabadgeli asaga rabo ku faraxsanay walaalka xaaskiisa hadaadan garanaynin isfahmaynin u nabadgeli asaga rabo ku daa ilan kaaga ba in lagu nabadgeliyo rabtaa hooyo yaabo sida soo kale wixii aan mutaysan doontiin ma garanaysiine meesha ku dambeyn doontiin ma garan doontiine walaalayaal noqono dad xikmad leh qofka xikmada leh wax ma kala saaro dadna inuu isxijiyo dadna ma riixo ilmahaaga xataa ka aad isku xijisid ayaa ka xumaaday walaalayaal ilaahay uga baqa dadka sinaanta ku dadaalno waxa idin kala hadlayaa qalbad nadiifa
oo daacad idiin ah oo naar inay idinka badbaadisa rabtaan salaada sidaa rabti u tuko sidaa rabti u soon sadaqadana bixi haddaad gudaha ka xun tahay waxba ma gelaysa naarta lagu geynayaa walaalayaal ilaaha uga cabsano aan noqono kuwa ilaaha u noqdo khayrka iyo wanaagga isku dardaarmo daryeelka qoyska Soomaaliyeed asaaskiisa ninka ragga waaye tiirarka kaleetana waa dumarka iyo ilmihii laakiin daladii kortaale wacayo daladaas waa qoyska Soomaaliyeed ee asaaska halkan waa dadkaas markay xumaadaan hadduu tiirkan uu dadkaas dhageysto maxaa dhacay wuu dumaa gurigan marka ninka ragga maadaamuu tiirkaas yahay waxaa waa nin adag oo sal adag oo karti badan inuu noqdaa haddii kaleeto ninka ragga ah markuu uu halkaas daladii saas ku tahay ee dadkan dhan xumaadaan dadkii uu dhageysanaya gurigaa ka dumaya uqubaa ku dhaceyso meel xunuu ku dhamaanaya wuuna ka shalayn doonaa naagtiisu furi doonaa wuuna ka shalayn doonaa maxaa yeelay nafsiyu galay doonaa nafsigana waa ciribtiisa way xuntaa warkay aad ku badinin aad iyo aad ayaan idin galgacal idinku hayaa qalbadayda waxaana jeclahay wanaaga balanteenuna waa wanaag iyo xumaanta oo la reebaa waan ku socon doonaa barnaamijkeena dalada daryeelka qoyska Soomaaliyeed si aan u daryeelno qoyska kadibna banaanka ayaan ka hagaajinaynaa marka gudaha hagaajina banaanka hagaajinaynaa balanteena waa sidaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu